gawaarida dadweynaha qaada ee ku kala goosha xaafadaha ku yaala magaalada Nairobi iyo magaalada hoose ayaa saakay laga mamnuucay inay gudaha magaalada hoose ay tagaan. Gabanaha ismaamulka Nairobi Mike Sonko ayaa sheegay in gawaarida dadweynaha ee loo yaqaano matatuda ay ciriiri ka dhigeen isu socodka magaalada hoose. Saakay basaska intooda badan waxay ku ekaayeen banaanka hore ee magaalada iyadoo shacabka ay u kala lugeynayeen goobaha ay u socdeen. Gabanaha Nairobi Mike Sonko ayaa sheegay in tani ay jimicsi u tahay shacabka, waxaana uu sheegay in sidoo kale ay yareynayso mashquulkii badnaa ee ka jiray magaalada hoose. Dhanka kale waxaa mashquul ah wadooyinka gala townka maadaama gawaaridii laga mamnuucay gudaha ay stage ka dhigteen banaanka hore ee magaalada. Sharcigan lagu joojinayo inay gawaarida gudaha u galaan magaalada hoose ayaa waxaa ka horeysay in mootooyinka sidan oo kale laga mamnuucay. Dhanka kale senatarka Nairobi Johnson Sakaja ayaa sheegay in uu kiiskan maxkamad geeni doono isagoo ku doodaya in aysan awoodin da'yarta iyo carruurta inay lugayaan masaafo inta dhan. Si kastaba waxaan la ogeyn halka uu ka dambeyn doono kiiskan looga mamnuucay gawaarida magaalada hoose. Cabdishaaq Xasan, Somali Cable, Nairobi.